Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ayaa howlwadeenadeeda u bilowday tababar ay kor ugu qaadayso aqoonta hawsha qaranka ay u hayaan. Tababarkan oo lagu qabtay xarunta Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ee Magaalada Hargaysa ayaa shaqaalaheeda waxa ay ku baran doonaan sida loogu shaqeeyo qalabka shaybaadhka raashinka lagu baadho oo mas'uuliyiinta hay'addaasi ay soo bandhigeen. Agaasimaha Guud ee Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland Maxamed Geedi Caynaanshe ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabkan iyo hawsha loogu talagalay in uu maareeyo. Maanta waxa farxad inoo ah oo wax aad iyo aad loogu reeqay inoo ah kharashaad fara badan oo naga bixi jiray inaynu maanta ka maarmi doono oo aynu kaga maarmi doono ijiinka baaraya sunta laga helayo cuntooyinka kala duwan ee galka leh ama waxyaalaha cerealska iyo legumeska bini'aadankii iyo xoolaha inuu dhaqanada xaqiiqatan wax yeelaya labadaba oo caafimaadkii bini'aadankana dhib ku ah xoolaha inuu dhaqanayno inagu si isticmaalayna dhib ku ah waxa ognahay in xanuuno zoonotic disease la yiraahdo ay jiraan oo qofku haddaan xanuunkaasi qabin neefka uu hilibkiisa isticmaalo ama caalihiisa uu isticmaalayo iyadoo laftigeeda xanuunka ka qaadayo wuxuu mishiinkani dawo ka yahay wuxuu mishiinkani tirtiri doonaa wuxuu mishiinkani naga baahi tiri doonaa waxyaalahaas dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka hay'addaasi Cabdiwaasac Maxamed Yuuusuf ayaa sheegay in qalabkani uu u suurtagelin doono isla markaana uu dabooli doono baahi badan oo ay u qabeen. إن شاء الله بإذن الله إنك أود واحد نصارني في قبك الدولة عنترة يا كريمسك واحد ناقر شيئا أو نابلان كريسا واحد ما أنت الحمد لله مشين كمان أنت عم فرنا أنه إن شاء الله واحد أنه عنه 70% واحد بروسس كمبرس إذا ما تقناي باستد مو يعني لكن وحيك له دماغنا وذا باريا taasina waa alxamdulillah wayna guul u soo hoyatay qarankan jamhuuriyadda Somaliland ay hormoodkana ka tahay ma taqaanaaye hay'adda Dhawrista Tayada taasina waa noo farxad hadda muhiimaddu waa maxay muhiimaddu waxa weeyaan inaanu inaguna culays fara badan isa saarno inaanu dadkeena si daacad ah ugu adeegno inaanu ma taqaanaaye dalkeena waxa la moodaa inta badan xuduudo fara badan baanu leenahay meelo fara badan bay wax nooga soo galaan waxaana lagu caayaayo shalayba baarlamaanku ay ka hadlayeen tayo xumada cuntada inay jirto waa la wada ogyahay qarankuna inaguna sugayaa marka fadhiino yaala fadhiino ma yaal